shirka dadweynaha iyo horumarka oo ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay gaar ahaan sanduuqa horumarinta dadweynaha iyo ka qaybgalkiisa ayuu ku wajahnaa safarka madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku tagay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya soo dhaweyn heerkeedu sareeyo ayaa madaxweyne farmaajo iyo wafdigiisa loogu sameeyay Nairobi 11 November maalin Isniin ah oo ay gaareen halkaasi waxaana shirka oo diiradda lagu saaray qodobo muhiim ah oo waxbarashada iyo caafimaadkuba ay kamid ahaayeen Soomaaliya ay la tagtay ajenda muhiim ah oo u helinaya danaha dadkeena 12 November ayuu furmay shirka dadweynaha iyo horumarka waxaana uu socday ilaa 14 madaxweyne farmaajo ayaana shirka ka jeediyay qodobad micno weyn ku fadhisay oo uu ku abaaray kaalinta dawladda ee awoodsiinta dhalinyarada sinaan la'aanta dhinaca bulshada iyo adeegyada dadweynaha iyo dhaqaalaha korarka tirada dadka Soomaaliyeed iyo qodobo kale maanta oo caalamku si xawliya u magaaloobayo oo ay jiraan sinaan la'aan baahsan oo dhanka bulshada iyo dhaqaalaha ah sida adeegyada dadweynaha waxaa aasaasi ah inaan aqoonsanno inaanan kow joogin balse dariiq dheerina sugayo si aan u hirgelinno barnaamijka ICBD ee looga gol leeyahay in dhammaan dadweynaha si siman loogu faa'iideeyo caalamkan isku xirmay cidna cidla kagama tegi karno waa inaan aqbalnaa inay jiraan caqabado aan wadaagno oo ku aadan hirgelinta kobaca dhaqaale oo loo siman yahay bixinta adeegyo dadweyne oo la heli karo iyo fursad u abuuridda dhalinyarada adduunka kuwaasi oo badankood ku nool qaaraddan Afrika sidaasi awgeed waxaa lagama maarmaan ah inaan si wada jir uga shaqeyno sidii aan u heli lahayn xalal wadaag ah aasaasi ahaan iskaashiga iyo qaybsiga culaysku waa dariiqyada kaliya ee aan ku gaari karno horumarka waara ee aan higsanayno sanadda 2030 intii uu socday shirka madaxweyne farmaajo waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo ciidankiisu ay qayb ka yihiin howlgalka midowga Afrika ee AMISOM waxaana labada madaxweyne ay isla gorfeeyeen adkeynta xiriirka iyo iskaashiga labada dal iyo guud ahaan xaaladda gobolka 13 bishan madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu magaalada Nairobi kulan kula yeeshay ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Kenya waxaana madaxweynuhu warbixin dhameystiran ka siiyay marxaladii ugu dambeeyay ee dalka iyo dadaalada dawladda Soomaaliya ee hormuudka ka yahay ay ku doonayso in dalka ay ku gaarsiiso horumar la jaan qaada caalamka intiisa kale kulanka oo ka dhacay safaaradda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dalka Kenya waxa ganacsatada uu kula dardaarmay madaxweynuhu in kaalin muuqata ay ku yeeshaan dib u dhiska safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi iyo dadaalada lagu caawinayo dadka Soomaaliyeed ee fatahaaduhu saameeyeen iyadoo isaas tahay waxa la rabaa tiinina inaydan iloobin dawladdiina xaggana inaydan iloobin wax alla wixii ku taakulayn kartaan ku taakulaysaan khaasatan hadda fatahaadaha dhacay inaa u istaagtaan fatahaadahaas biyahaas maaragtay runtii dadka dhibaateeyay inaad u istaagtaan oo aad ka qaadataan wax alla wixii karaankiina aad ku taakulaysaan ama aad ku gargaaraysaan dadkiina waalaha ah ee halkaas ku dhibaataysan inaydan marnaba oran idinku meel fiican baad joogtaan ama nabada dhibaatooyinka inta badan Soomaaliya laga sheegay ma qabtaan marka gurigaaga iyo shaqadaada iyo reerkaaga ha ka badnaanin ku dara wixii aad ku tari kartaan dadkiina waalihiina ah ee tabaalaysan Soomaaliya jooga haddii dhibaato saas oo kale dhacdo waxa kale oo aad ku dartaan haddee safaaraddiina idinka iska leh wax la wada leeyahay waa tan waa gurigaan wax la wada leeyahay waxaa loo baahan yahay in aad dhisataan oo aad quruxsataan safaaraddiina aydan u daynin oo kaliya dawladda Soomaaliyeed kaliya aydan u daynin maxaa yeelay kulligan mas'uuliyad baa noo saaran annaga waa ku magacaabannahay laakiin shaqada waa noo wada taallaa qof gaar shaqada u leh ma jiro annaga waxaan naloo doortay ama ujeedada aan u joogno positionada aan joogno waxay tahay inaan idin direct gareyno aan wax idin tilmaanno laakiin inaan wax walba annaga nagu halaysaan hadday tahay dhaqaale iyo xoog iyo caqli iyo kulli ma aha idinka intaas oo dhan haya marka safaaraddeena waa aragteen intee la eg tahay waxaan qiyaasi karaa inay tahay annaga kulleyba safaaradda ugu weyn aan adduunku leenahay inay tan noqon karto laakiin haddee meeshii waa burbursan tahay waxay u baahan tahay in bilicdeedii iyo quruxdeedii iyo wanaaggeedii la soo celiyo idinkana aad ka bilowdaan haba yaraataba qof walba waxa karaankiisu yahay inuu ku darsado maxaa yeelay waa gurigaagii waay wax gaar u leeyahay safiirka ma aha wax aniga aan leeyahay ma aha
waa wax naga haraya oo jiilka soo socda dhaxal u ah waay. maalin khamiis ah 14 November madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu hoyiga uu ka deganaa magaalada Nairobi uu ku qaabilay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo madaxweynuhu uga mahad celiyay soo dhaweynta wanaagsan ee isagii wafdigiisa loogu sameeyay Nairobi. labada madaxweyne waxay isla falanqeeyeen xaaladda gobolka si gaar ah xiriirka labada dal waxaana isla go'aamiyeen in la fududeeyo isku socdaalka labada shacab dibna loo soo celiyo duulimaadada tooska ah ee Nairobi iyo Muqdisho iyadoo mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha rayidka ah ee dawladda ay dalkugalka Kenya ka qaadanayaan garoomada diyaaradaha ee dalkaasi. shir jaraa'id oo ay si wada jir u qabteen labada madaxweyne waxa uu madaxweyne Farmaajo ku soo hadal qaaday dacwadda badda ee taalla maxkamadda cadaaladda adduunka. We have a lot of things in common. Our people to people, government to government, business to business. Of course, we have a trade. Okay, that's really mutually benefit for both countries. And people basically take it our differences rather than our common interest. And that's why I have to assure that the ICJ issue will not affect our bilateral relationship, and to make sure that we both benefit our government-to-government relationship. And I really thank you for your great hospitality and reception. Thank you so much. safarka madaxweynaha ee magaalada Nairobi oo qaatay 5 maalin waxa uu xambaarsanaa faa'iidooyin badan oo ay ugu weyneyd fududeynta isku socdaalka labada dal oo sahlaya in hanaan wanaagsan oo ku socda xiriirka iyo danaha labada dal oo ganacsigu ugu weyn yahay. 15 November oo maalin Jimcaha ay ku beegneyd ayuuna soo gabagaboobay socdaalka madaxweynuhu uu ku joogay Nairobi waxaana isaga iyo wafdigiisuba ay dib ugu soo laabteen magaalada Muqdisho.